magacaygu waa Maxamed Cali Cumar waxaan ku suganahay aan ka qayb qaadanayaa barnaamijka Qisi Qiiro waana qasi ugu dhacay aan rabaa inaan la wadaago baahidinta Soomaaliyeed waqtigan iyo hadda dunidan iyo koonkan tobankii qof ee haasaa wadaagu ka dhaxeeyaba toddoba ayaa iska barta xiriirkooduna ka bilaabmaa baraha bulshada toddobadaasna shan ka mid ah waxay iska bartaan Facebook qisada Maxamed iyo inantuna waxay ka bilaabatay aaladda Facebook sanadku markuu waxaan maalmaha kamid ah baraha social media gaar ahaan Facebook iska barna gabar Soomaaliyeed oo leh gabar aad u wanaagsan oo dabeecad fiican aan jeclay inaan ka sheekeeyo laakiin aan jeclay qisadii ugu dhacday ani ayadan dhex martay inaan ka sheekeeyo dabcan waxaan isbarnay 2019 dhamaadkiidaas barnay waa taqaan laba qof oo social media adna friends ku yaadan qof hadoo seedkiisa wax soo saarto qof kale si uu falceliyo reaction wa bixiyo sidaas aniga qof reaction wa bixi jiray ayadan keega reaction ay soo bixi jirtay sidaas aan isku barnay gabarta qof dareen wahay because waxa waaye intaan isbaran ka hor muddo bilowina friends aheena seedkiisa daawo jiray sidaas ay soo jiidatay mar haddii meesha la iska bartay ay tahay Facebook cid kastaana isticmaasho bilowgana qofka ay ku adag tahay inuu kala saaro qofkan kale dhinaca uu ka tirsan yahay ma inta xun mise inta wanaagga walaalka la ah ayaa Maxamed caqabada koowaad ee qabsatay ay tahay sidii gabadhan uu jeclaaday uu uga dhaadhicin lahaa dareenka dhabta ah ee uu qaaday taasina waxay Maxamed ku qaadatay bilooyin samuuqsan ee uu u samray ugu dambeynna uu ku guuleystay damciisa aniga ka helay anaan xiriirku hor sheegtay horta muddooyin badan ay u qaadatay muddooyin bilowgan 2 bilood ama 3 bilood camaleed ay u qaadatay aan ka dhaadhicin inaan qof ayada u baahan qof ayada aan jecelahay inay tahay waxyaabo badan oo tacaqabooyin badan ma soo dhaxgaleen laakiinse because hadda iska qofku waa qof dumar waxa raba in adiga dulqaad ka bayso adiga aan raga wax badan caqabooyin ma soo dhaxgaleen laakiin fiillahi alxamdu ma san ahayn waxyaabo ku kala tagmaysan noqon gabadhan uu jeclaaday Maxamed marna muuqeeda ma arko ma kulmaan sida dhigiisuba laba ay waqtiga soo qaataan isaga iyo iyadu iskuma iman karaan oo ma kulmi karaan kaliya waxay ka wada hadlaan halkaas sababtuna waxay tahay gabadha aan ku noolayn halka uu ku nool yahay isagu oo Muqdisho ah balse waxay ku nooshay waxay ii sheegtay inaysan Muqdisho degnin ee deginta gobolada dabcan waan ka qaatay warkii muddo badan aan way soconay muddo sanada way soconay dib wax walba waa soo wada qaybsanay Maxamed hooyadii aabihii lama soo korin oo isagoo 2 sano jira ayaa hooyadii ugu dambeysay waxa soo korsatay isaga eedadii aabihii la dhalatay eedadiisii soo korsatayna waxay noqotay caqabada ugu adag ee soo dhaxgashay Maxamed iyo inanta ay jecel wadaag yihiin xiriirkeena waqtiga inaan ka mir dhaliyo waxyaabo caqabooyin badan ay hor istaagay aniga familkayga kowkiin familkayga hadda dhahayn ma sanayn hooyadii aabihii waxay hor istaagay waxay maamo eedaday ilaa qeyraasi aniga soo karisay Maxamed iyo gabadhii muddo sanad ah ay wada socdaan xiriirkooda xoogaysay kubuc marka ka dambeysana uu sii siyaadaya dareenka iyo xanuunka jacayl ee midba kan kale uu qabo labadooduba waxay isla qaateen in hadda la gaaray waqtiga ay qabsan lahaayeen xafladda arooska gurina ay samaysan lahaayeen oo hawshu guur ay joogto waxana dhacay mar haddii dib la soo wada qaybsan meesha lagu soo guuray waa in aqal galnaa wada aroosnaa waxaan ku wada badanna guur wax walba soo dhacay diyaar u noqotay guurkayga anigana waxa iga dambeeyay waa familkayga ayadana family beelada aniga familkayga ba arinta u sheegtay familkayga nacam bay dhaheen anigana u sheegtay inaan gabar leeshiyay aan u baahana in lagu daro marka hore wax walba diyaar ay la noqdeen falcilinta marka hore ay muujiyeen waji farxad waji wanaag marka hore liigu muujiyaan soo dhaweeyay wax walba u baahan taan waa lagu qabanaa waa leeyahay waan la hadleen gabarta aabaheeday la hadleen anagoo maqlaaya la hadlay Maxamed inanta inuu guursado qoyskeeda gaar ahaan iyada aabaheed waxa uu shardi uga dhigay in wiilku Muqdisho ka soo tago oo uu ka soo guuro isla markaana uu yimaado magaalada iyadu joogto halkaasna uu la dego balse Maxamed maadaama aan hooyo iyo aabbo la joogin waxa arintiisii go'aan ka gaaray adeeradii iyo qoyskiisa oo eedadiisa caqabada ku hayday ku jirto gabartii waxay dhahday aabihii waxa buu sheegaa
adeerkii gabarta dhalaa aniga soo wacay wuxuu yidhahay maxamed miya arrinkaas waa maqlay aniga waxaa kaaga baahanahay in anigii imaato magaalkaa joogaad imaato wax lagaaga baahayaa mar gabarteeda anaa ku siiya anaan kuula diyaar aniga waxaa dhahay familaa iga dambeeyo familkaygaan uu soo bandhiga arrintaas familkaygan waxay igu jawaabeen waxay dhaheen meel aan cidna kuu jirin aad cidna ka aqoonin aniga inaan kuu dirno diyaar uma nihin caqabadda ugu weyneed meeshaasay ka bilaabatay maxamed xanuunka haya ma aha mid uu go'aanka labada qoys uu mid ahaan raaci karo inantii ayuu la hadlay balse ay arrinta xal uga wada gaadhaan iyadii ayaa markiiba war farxadda la wadaagtay oo ku tiri arrinta waa u sheegay arrinta jirta waa u sheegay waxaana u sheegay weliba inuu idhaha aabaheed gabarteeda haddaad meeshaa imaanaysa waa kugu dara haddaad imaanayninna kuguma daraayo gabar kuma siisanaayo waa u sheegay ayadoo waxay idhahday aniga jawaab igu sug maalmo ka bacdi jawaab igu soo celisay waxay idhahday anaa kugu imaanaya anaa diyaar kuwe familkaada wax walba uu sheegay inaan aniga soo socdo inantii gaadha ayaa xamar u soo saaran tahay maxamedna way u soo sheegtay inay dhankiisa ku soo socoto balse nasiib darro isaga gacanta waxba uguma jiraan waa dhallinyar aan wax kasta fushan karin eedadiisii soo korsatay iyo qoyskiisa ayuu la wadaagay arrintaa jirta iyo inantii inay soo socoto waxaana loogu jawaabay maalin maalmaha ka mida anigoo hurdaayo waqti walba ayadaa hurdada iga kici jirtay maalintaas hurdada waa ku dheeraaday 5 saac oo maalin ayadoo la maraayay soo wacday waxay dhahday maxamedow arrintaasaa jirto anigana waa soo baxay gaariyaana soo fuule xamaraana soo aaday anigana waa dareemi kartaa si ahay cunug dhalinyaraan iska ahay familkayga arrinta la wadaagay waxaan nahay gabartii way soo baxday gaariyana soo saaran tahay familkayga waxyaabaha qaar ay igu jawaabeen waxaa ka mid ahaa gabartaas aniga isma naqaano mana sheegano haddaa gabartaas raacaysidna raac adigana hadda albaabka kuu furan yahay gabartan waa raaci kartaa marka anigan raga ahaa nin wax walba igu qaadato waa sameeyey gabarta xamar waa keenay waa ku soo dhaweeyey si weyn inantii lawaa qoyskeedu iyada ayay raadinayaan dhowr jeer ayay isaga la soo hadleen oo ay u tuhmayaan in isaga ay la joogto balse waxba kamay helin ugu dambeyn maxamed labadii qoys ee isaga iyo inantu ka kala dhasheen ayaa la wada hadlay waxayna u sheegeen in gabadha berri loo doonayo loona meherinayo isaguna sheego inantu halkay joogto gabartu waa dareemi kartaa fami gabarteeda ka soo baxday ka soo tagtay inaysan meekale aadi karin aniga toos lii soo abaaray waa lii weydiiyey aniga wax badan gabartii waa qariyey intaas ka bacdin gabartii way qarsoomi weysay waa la ogaaday in aniga la joogto waxaa liiga dhaadhiciyey oo maskaxda liigu dejiyey oo aniga ciddeeda iyo cidda gabartaba iga dhaadhiciyeen in gabartan la ii guuri doono beri ka bacdiba maanta qoyskii gabadha iyo qoyskii wiilku waxay iskugu yimaadeen inay isa siiyaan wiilka iyo gabadha iskuna meheriyaan maadaama ay raalli iska yihiin balse qoyskii wiilka ayaa u sheegay reerkii gabadha war aan golaha laga filayn gabartii ciddeeda isla maalintii ku xigtay way imaadeen gurigeena imaadeen waa loo tilmaamay guriga tilmaamay ku imaadeen subaxnada ka mid ah anuu hurdaayay gabartii imaadeen maalin talaada ayaad wax xasuustaa abaar 3 saac camal meelahaas ay gabartii ciddeeda imaameen way imaadeen familkayga la wada hadleen dabcan waxay ku hadleen waxyaabaha qaar aan la sheegi karin qof Soomaaliyeed oo san ku hadli karin damiir waalniman oo ku hadli karin waxyaabaha qaar ay ku hadleen waxaa ka mid ahaa marka gabartii ciddeeda imaadeen waalid ka socday waxaa lagu jawaabay aniga wiilkeena waa ceshan karnaa idin gabartiina ma ceshan kartiin labadii dhinac ku kala kacay golihii farxadda iyo dhismaha qoyska laga filayay maxamed inkasta oo wax dhacay aanu la socon haddana waxa soo wacday inanta hooyadeed oo u sheegtay wax kasta hadday dhacaan familkii aniga maalintaas anigana guriga waa joogaa guriga qolka dambaa jiifaa waxban kamaan ogeyn arrinta guriga dhex dhacday cabaara ka bacdi yaa li soo wacay gabarta hooyadeed oo dibadaha jirta ay soo wacday waxay yiraahdeen maxamedow arrinkaasaa dhacay cidiinana saasay ku hadleen marka waxaa kaa codsanaa inaa gabarta guriga eedadeed geesid wax walba oo dhacana cidaada ka mas'uula aniga guriga aniga jooga aniga waxba ka weynay arrinta ka dhacdaa
gabarta hooyadeed saas ii sheegtay in ciideeda familkeyga saas ku hadlay. Maxamed ugu dambeyn waxa uu go'aan ku qaatay in gabadha uu celiyo isagoo eegaya duruufta ay ku sugan tahay inanta hooyadeed. aniga waxaa fiiriyay laba dariiq waa fiiriyay maantay dadka sidaan aniga ka dhashay maantay oo haddana gaar ahaan aniga ii soo kariyay haddii maanta sidaan igala dhaqmeen gabarta aabaheedna sidaan uu ku hadlay aniga waxaa fiiriyay markii aniga maana fiirin danteena maana fiirin danta hooyada gabarta dhashaa fiiriyay gabarta hooyadeedna marka way xanuunsaneed xanuunna way qabtay marka waxay yiraahdeen waxay iga cusubtay in aniga gabarta wado guriga adeeraasheedna aageeyo maalmaha kamid abaar galabtii 9 saac gabarta waa waday guriga eedadeeda geeyay aniga ayadoo isla socono waa ka soo tagay maqribiya camal aan ka soo tagay waan wada habeenkii ninga wada hadleynay habeenkii 7 saac ay ugu dambeysay saaka waa subax hore maxamed waxa la soo hadashay inantii waxay la wadaagtay war aan ku farxin oo ah inay saaka diyaarad ka raaxayso Muqdisho wax hal ahna aanu gacanteeda ku jirin kaliya uun ay macsalaaminayso hadana saacad kadib ay la soo hadashay oo sheegtay subax markuu waaga bariyay 5 saac subaxnimo ka tahay soo wacday waxay yiraahdeen maxamedow arintaas dhacday anigana hadda diyaaradan saaranahay wax aqaba kare ma jirto eelaboorka dhex taaganaa diyaaradna waa saaranahay muddo abaaro hal saac ka bacdi soo wacdan waxay igu jawaabtay waxay yiraahdeen eelaboorka halka ka dagay waana kaasa aabiyeen hadii soo socdo nabadgelyo meeshaas ay ugu dambeysay warkeeda. maxamed wuu niyad jabay wuu murugaysan yahay oo xanuunka daran ee qalbigiisa lucinaya waxa kaga daran qoyskiisii uu la noolaa soo korsaday ee waalidka uu ahaa haddana noloshiisa mugdiga madow galiyay waxaanu ku dhaqaaqay oo sameeyay aniga maadaama uu sidaas la qamay aniga family-kii aniga aan ka dhashay eedada aabihii la laatay sidaas ay la qameen aniga family-kina macnaha walaa waa kinii jabay waana ka soo tagay hadda fiilaahi alxamdu aniga hooyadii dhashay oo ay u dambeysay aniga 2 sano jir maanta dib u midoobay waxaan ku noolaa guriga hooyadii muddo hadda ay ka soo wareegtay 7 iyo maalmo maxamed waxa sawirro iyo fiidiyo soo diray wiil ay qaraabo yihiin inanta arrinka wiilku maxamed la wadaagina waxay sababtay ilmada maxamed indhihiisa ku taagan waxa kale oo wiilku maxamed u sheegay in uu inantooda farxadeeda uu soo hambaliyo hadda khamiista maahan khamiisteeda kale habeen jimcaha ma ka tahay 4 saac habeenimo baa waxa ii soo dhacay fiidiyooga iyo sawiro waxaan ii soo diray wiil ayada ilmeeyada yihiin waxa la ii soo diray fiidiyooga iyo sawiradan waxa waaye gabarta arooskeedii waliba waxyaabaha badan oo wali raaciyeen waxay tahay sawirada waa taas way aroostay waan la aroosay ona soo hambaliyay wax ka xun ma jiraan ugu dambeyn maxamed isagoo ilmada indhihiisa ceshanaya oo diidaya in dhulka u soo daadato waxa uu fariin u diray waalidiinta Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa awlaadooda intay yar yihiin waxay u baahan yihiin in garab lagu siiyo wax walba waxay ku soo bandhigayaan haddii wax xun yihiin waa laga yaabaa inaad ka diido laakiin wax wanaagsan haddii yihiin inaad garab gashin isku day insha Allah aniga hadda ma ahan uma maleeynaayo man islaahay qofka jecelaysaan ku galay qofkan jecelaasaan ima gelin aniga waalidkii dadka ka dhashaasaan galay waxaan dhahaa wiilasha yarka qalbiyadooda lagu ciyaarayo hal iska dhaafo